kulanti waxaana wanaagsan dhammaan bahda ku xiran channelka kulmiye technology korsaan waa koorsadii c plus plus casharku waa casharkii 35aad maanta waxaan qaadanaynaa adding multiple array sida la iskugu daro laba array hore waxaan usoo baranay qaabka la iskugu daro variable haddii aan idin xasuusiyo anigoo fududeynayo waxaan dhihi jirnay waxaan qabsan jirnay hal variable kaliya waa tusaale waa iska fududeynaya saddex ku shub kan kale b oo kale iska dhe asigana waa ku shubtaa labo kadib waxaan qabsan jirnay meesha aan rabno inaan ku xirano c oo kale iska dhe waxaan dhihi jirnay a plus b qaabkan hore ayaanu soo aragnay kadibna waxaan dhihi jirnay inaan soo bandhigno c kadibna aan dhahno endline balse maanta waxaan rabnaa inaan aan qaadano isla macnaha xeerkan balse anagoo isticmaalayna array xeerkan hore waan soo qaadanay wax yar ayaa isbedelayo maanta waxaan ku dabaqaynaa xeerkan anagoo sameynayno array qaabkaas ayaan baran doonaa okay balan isla aragno marka ugu horeysa waxaa qabsanaynaa halka variable haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa integer haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa float haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa character haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa integer haddii aad rabto waa ka dhigi kartaa string waxa laaliyo waxaa rabtaa ka dhigi kartaa hadda waxaan iska doortay integer maxaa yeelay waa number iyaga ayaa hadii loo isku diris u fudud okay kadib waxaan dhahay array magaca rabta u baxsan kartaa balse maanta waxaan iska doortay array 1 si macnaha a aad ila socotiin array 1 arraydaas waa keyword balse lama ogolo waxaan qaadanaynaa array kadib waxaad macnaha aad sheegaysaa labadii calaamadood oo u sheegaya computerka waxaana anaga aan qabsanay inay variable caadi ahaan ay yihiin array sizeska u sheegaynaa haddii aan rabno haddii kaloo isla durbadiiba aan qiimo ku shubeyno waa ka tegi karnaa si aan casharkii hore aan soo qaadanay sidaa ujeedin waxaan ku shubayaa 1 si macnaha ay calculationka oo nagu fududaado xisaabta si aan iskula socono meeqaan dhahay meeqay qaadi kartaa 3 2 2 iyo 3 sidaa ujeedin 3 ayaa ku shubay ka badan lama ogolo kadib waxaan qabsanayaa iyadana arraydii kale waxaan ka dhigayaa meeshaan array 2 iyadana sidoo kale waxaan u sheegayaa inay array tahay waxaa leeyahay 3 cabirkooda isku mid ka dhig si isku diristooda ay isku mid u noqdaan okay kadib waxaan leeyahay meesha agsiibada 4 5 okay kadibna waxaa leeyahay 6 kadibna waxaa dhacdaa semicolon okay halaan waa qabsaday waa sidii oo kale hal mar aan boobsiiyo a oo kale 2 nt b oo kale 3 halaan waa xasuusin kadib waxaan u baahnaa inaan qaadano hal variable kaasoo aan ku xiriirinay wixii wadartooda ka soo baxay labadan variable sida a oo kale iyo b oo kale haddii laba lagu daro 3 waa 5 wadartooda waxaan qabsan jirnay meel aan ku xirayno waxaan iska dhihi jirnay kala wadarta amba c waxa laali waxaa rabtaa u bixi kartaa kadibna waxaan dhihi jirnay a plus b qaabkaan ayaan dhihi jirnay raalligii waa isla raalligii balse wax yar ayaa isbedelay hadda waxaan u baahnaa array kale maxaa yeelay variable caadi maaha waxaan u baahnaa array kale kaasoo awood u leh inaan xariiso arrayaashaan la isku soo wada diray kadib waxaan leenahay wadarta okay wadarta waxaan u sheegaynaa waxaan arrayin cabirkoodana waxaan ka dhigaynaa 3 maxaa yeelay waa 3 kadibna waxaa leeyahay semicolon maxaa yeelay hadda variableadan anaga hadda isla markiiba qiimo wuu ku shubi karnaa balse qiimaha aan rabno inaan ku shubno ma ahan qiimo anaga aan kor ka naqaano waa qiimo kusoo bixi doono xisaab ma anaga aan sameynay waxaa jira qaab dheer qaabkaas waa la mari karaa qaabkaas waa qaabkan position 0 inaan dhahno waxaa ku shubtaa hore waxaan ka dhihi jirnay tutorialadii hore inaan 30 aan baan dhahno balse maanta waxaan rabnaa arraydan positionkeeda koowaad inaan ku shubno waxaa dhigaysaa array 1 qaab kaloo ka fududaa jiro balse qaab kasta inaad baratiin rabaa si macnaha haddii aad meel ku aragtiin aad hore ugu fahantiin position 0 waa ujeedaa arraydan position 0 hadda meeqaa ku jiro waa halaa ku jiro waa sidan oo kale camal a iyo b waxaan haddana dooranaynaa plus qiyaas maxaan dhahna array 2 okay array 2 positionkeeda iyadana position 0 maxaa yeelay waxaan rabnaa in wixii position 0 ku jiro labada array
and array 1 position 0 geeda waa kana waa 1 arraydan position 0 geeda waa kana waa 4 inta meeqa waaye marka waa arraydan position 0 geeda meeqa waaye waa 1 waa kana arraydan kalena position 0 geeda meeqa waaye waa 4 waa kana hal 4 ku dar waa 5 inta waxa ka soo baxaya 5 waa anagoo sidaan oo kala dhaan 5 balse computerka asaga ayaa xisaabinayo markii ay 5 ka soo baxdaa waxa lagu xareynayaa positionka in qaabkan sida u jeedin waa qaab dheer haddii aan dhaho waa la sameyn karaa hadda bal aan isticmaalo qayaano yar anigoo ku biyeysanayo waxaan si macnaha qoraal badan aan ugu oradno kadibna aan iska bedelino positionada keliya meeqa mar 3 jeer ayaa u baahanahay qaabka fududaa jiro qaabkaasaan rabaa balse qaabkaana baratiina rabaa kan waxaan ka dhigayaa position 1 kan waxaan ka dhigayaa position 2 okay intan maxaa iska bedelayaa position 1 kan waxaan ka dhigayaa position 2 kan waxaan ka dhigayaa position 1 kan waxaan ka dhigayaa position 2 si aad u jeedin maxaa sameynay arraydan positionkeeda position 0 waxaan rabnaa inaan ku shubno arraydan position 0 geeda position 0 geeda meeqa waa hal arraydan arraydan iyadana position 0 geeda meeqa waa 4 hal 4 ku dar waa meeqa waa 5 inta waxa lagu shubayaa 5 arraydan positionkeeda everett waxa lagu shubayaa 5 waxaan arraydan positionkeeda koowaad waxaan rabnaa ku shubno okay waxaan rabnaa ku shubno arraydan koowaad array 1 position 1 keeda waa kana waa 2 2 oo lagu daray arraydan position 1 keeda position 1 keeda kan waa 0 kana meeqa waa 1 inta waa 5 waa 2 laba 5 ku dar meeqa waa laba 5 ku dar meeqa waa 7 inta maxaa lagu shubayaa 7 okay arraydan waxaan wadartan okay positionkeeda labaad waxaan rabnaa ku shubno arraydan 1 position 2 geeda position 2 waa kana waa 3 maxaa kan waa 0 kan waa 1 kan waa 1 kan waa 2 position 1 meeqa ku jiro 3 oo lagu daray arraydan iyadana position 2 geeda waa 6 3 waxaa lagu darayaa 6 6 ku dar waa meeqa waa 9 arraydan positionkeeda 2 waxaa lagu xareynayaa 9 rajayna inay ila fahanteen haddii aad rabtiin waa soo bandhigi karaa hal mar si iyadoo qaab dheera balse qaab yaro fududaa jiro wadarta 0 kadibna endline kadibna aan iska koobiyeysto ilaa 3 jeer maxaa yeelay waxaan u baahanahay 3 jeer kadibna aan ku daro as labada ekeeyo si ay koodkeena u noqdo mid qurxan haddii aan buildiro hal position aan ku celshay hal qiimaa laysoo saarayaa inta hilmaamay inaan bedelo waxaan ka dhigayaa 1 waxaan ka dhigayaa 2 maxaa yeelay arraydan waa meeqa waa 3 indexkan wuxuu ka bilaadaa haddii caadiyan anaga bilaadaanku lamo 3 bas computerka wuxuu ka bilaadaa ever sidaa darteed waa 3 okay waxaan rajeynaya inay la fahanteen haddii aan rangareeyo waxaa soo baxayo taladii aan haddaaya aan soo sheegnay waa 5 7 9 haddii si fudud waa kana hal 4 ku dar hal 4 ku dar waa 5 hal 4 ku dar meeqa waa 5 laba 5 ku dar meeqa waaye waa 7 3 ku darna waa 9 okay qaabkan waxaan rajeynaya inay la fahanteen balse qaab yaro fududaa jiro anagoo isticmaalina lubis anagoo koodkan badan aan qoraynin anagoo isticmaalina lubis qaabkaas ayaa rabaa inaan ila wadaago aan qabsado follow kadibna aan qabsado variable-kii aan loopkan aan ku xukumayay kadibna aan dhaho equal okay semicolon ilmaami waxaa leedahay inta ay ka yartahay arraydan meeqa waa xajmigeedu waa 3 dhammaantood waa isku mid xajmigoodu waa 3 inta ay ka yartahay 3 waxaan kaa rabaa in ay badiso okay ay la badisho okay waa la badiyaa okay kadib waxaan rabaa in ay furto boodiga oo follow-kan kadib markii aan furno waxaan leeyahay fiiri sidoo koodkan u fududaanayo haddaaysa u dheeraa iyo hadda sida uu noqonayo bal la arkaa waxaan leeyahay positionka I meeqa waayo waa 0 position everett waxaan rabaa positionka everett wuxuu la mid yahan dhahay array 1 positionkeeda everett wixii haddaaya leewaay balse qaabkii lee wax yar iska bedelay array 2 positionkeeda iyadana I oo everett aan rabaa inaad ku shubtid meeshaan sidaa u jeediin maxaa dhacayo wadartaa meeqa waa I meeqa waa leeyahay markuu ugu horeysa I waxay la mid tahay 0 okay hal mar aan garayn kadib hal mar
anigoo hal mar ayaan si fudud u sharxayaa. haddii aad hadda sidaa ujeedin waxaana waa hal sadar for loopkan shaqada uu qabo ayaa hal sadar kama badno. labadan calaamad waa ka tegi karnaa si koodkeena oo nagu noqdo mid qurux badan. aan iska dhaafno labadaas calaamad. hadda haddii aan gareeyo arraydan waxaa lagu harinayaa dhammaan wixii haddaay shaqadii aan qabanayno o dhan. shaqadii haddaay aan qabanayno o dhan waxaa qabanaya halkaan sadar. bal aan isla aragno haddii aan gareeyo kadibna aan fiirino haddii error nu qabsanayo iyo haddii kale. sidaa ujeediin wax errorana ma qabsan. haddii aan rabno inaan soo bandhigno waddadii dheereed oo haddaay si outka 3 mar waa isticmaali karnaa. haddii aan rabno for loop waa isticmaali karnaa si aan koodkeena ugu dhigno qaab fudud. waxaan iska isticmaali karaa isla for loopkan maxaa yeelay variablekan oo aye scopekan ka banaanka waaye isla markii waa qabsan karaa. balse anigoo scopena hore ayaan usoo sharxay wixii ku jiro curly bracekan. maxaan ka wadaa curly bracekan waa curly bracekan variablekan ay la dhahayo wuxuu ka jiraa keliya curly braceskan ka banaanka kama jiro. haddii horena usoo sharxay scopeka haddii aad rabtiin kor ayaan soo saarayaa korka fiiri casharadii hore ama playlistii kasoo fiiri. sidaa darteed marka scopekan haddii uu ku jiro variablekan waxaan awood u leenahay inaan mar labaad aan isticmaalno. hadda haddii aan ka tiro curly braceskaas muuqaal ahaan wuu ka tiran yahay laakiin computer ahaan backgroundka wuu ku yaalaa laakiin anigu ma jeedno koodkeena ayaan ka fikirno inaan quruxsano balse scopeka wuu jiraa. kadibna waxaan leeyahay soo bandhig. maxaa la soo bandhigaa waxaan rabaa inaan qurxiyo. waxaan rabaa inaan soo bandhigo arraydan arraydan oo lagu daray aan isticmaalo format oo plus lagu daray kadibna aan dhaho array2 si aad u aragtiin aan soo jebiyo koodka si aad si fiican uga aragtiin. haddii kale leenka ayuu ka baxaya oo lagu daray waxay la mid tahay wadarta positionkii I kadibna aan dhaho endline. hadda bal aan rangareeyo waana sharxaa. si aa ujeediin waxaa soo baxay hal 4 ku dar waa meeqo waa 5 2 5 ku dar meeqo waa 7 3 6 ku dar meeqo waa 9. hal mar oo kubiga aan sharxo qaabkan. marka hore waxaan qabsanay array hore soo baranay qaabka array loo qabsado iyo qaabka loogu shubo sharaxaad ma baano. kadibna array kala qabsanay waa ku shubnay kadibna hal array oo kala qabsanay oo taas oo aan rabno wadartii ka soo baxday labada array isku darkooda inaan isku shubno. kadib qaab dheer waa aragnay qaabkaas balse qaabkan fudud arnaa. isla baan waxaan qabsaday for loop waxaa dhaca ay waxay la mid tahay ever. ever meeqa ku jiro waa ever iyo 3 yaayar. su-aashaana la weydiinaya ever iyo 3 yaayar ever ayaa yar. kaas wuu noo dambeynaa inta ayaa la imaanaya. waxaa leeyahay wadarta positionka I meeqa waa ever. inta waxaa lagu bedelayaa ever balse muuqaal ahaan waxay noola muuqataa annaga balse computer ahaan wuxuu muuqataa saas waa ever. sideeda aan kusoo celsho kadibna arraydan positionka I meeqa waa ever. saas ayay u muuqataa dhammaan computer ahaan balse muuqaal ahaan annaga ayadaas ay variablekaas waa la fasirayaa. variablekaas meequu maraa ever. wadartan positionkeeda everaad waxay la mid tahan dhacnay. maxay la mid tahay arraydan positionkeeda everaad meeqa waa hal lagu daray arraydan positionkeeda everaad iyadana meeqa waa 4 hal waxaa ku dartaa 4 waa meeqo waa 5 inta waxaa lagu shubayaa 5. kadib haddana intaa la imaanaya koodkeen intuu imaanaya ayaa hal lagu daraa hadda meeqay noqotay waxay noqotay hal. kan ma la tegaayo mar kale maxaa yeelay asiga hal mar leeda tagaa. inta ayuu imaanayaa 1 iyo 3 yaayar oo leeyahay su-aashaasaa la weydiinayaa 1 iyo 3 yaayar waxaa yar 1 yar. intaa la imaanayaa waxaa leeyahay wadarta meeqa waaye waa hal positionkeeda koowaad. wadartan arraydan positionkeeda koowaad waxaa rabta waxay la mid tahan dhacnay equal waxay la mid tahay arraydan positionkeeda koowaad waa meeqo arraydan waa kana waa 2 lagu daray arraydan iyadana positionkeeda koowaad meeqo waa 5 2 ku dar meeqo waa 7
arraydan positionkeeda koowaad meeqa lagu shubaa waxaa lagu shubayaa 7 inta la imaanaya haddana waa la badinaya meequu noqonayaa wuxuu noqonayaa 2 inta la imaanaya waxaa leeyahay 2 iyo 3 yaayar 2 yaayar arraydan positionkeeda labaad waxaan kaa rabaa inaan ku shubtaa leeyahay arraydan positionkeeda labaad meeqa ku jiro 3 oo lagu daray arraydan positionkeeda labaad meeqa waa 6 3 6 ku dar waa meeqa waa 9 okay inta la imaanaya hal ku dar 3 inta la imaanaya marka 3 iyo 3 yaayar 3 kama yaro sidaa darteed waa falso waa qalad for loopkan waa laga soo dhexbaxaya arraydan wixii dhammaan lagu soo xareeyay kadib inta ayaa la imaanaya koodkan intuu imaanaya aydan ayuu qabsanaya wuxuu leeyahay waxay la mid tahay ever aydaasna hadaayo waa sharxay scope-ka banaanka waaye haddii arrow waa iska dhigi kara h haddii arrow waa iska dhigi kara b wax micnaa ma sameynayso scope-ka banaanka waaye haddii arrow marlaad isla magacii waa qabsan karaa kadib waxaa dhaha ay waxay la mid tahay ever ever iyo 3 yaayar ever yaayar okay inta la imaanaya waxaa leeyahay arraydan positionkeeda koowaad soo bandhig alaa maxaa soo bandhig arraydan positionkeeda everaad soo bandhig ever meeqa ku jiro hal oo lagu daray calaamadan lasoo bandhigayaa arraydan positionkeeda meeqo iyadana everaad hal afar ku dar meeqo waaye kadibna waxaa dhaha equal soo bandhig walarta okay positionkeeda koowaad haddaa ayaan soo xisaabanay hal afar ku dar meeqa waa 5 inta waxaa lagu soo bandhigayaa halan waa la sarifaa maxaa yeelay halan waa la bedelaa computerku bedelaa meequu leeyahay positionkeeda everaad meeqa waa hal oo lagu daray 4 waxay la mid tahay oo soo bandhigayaa wadarta positionkeeda everaad meeqa ku jiro hal afar ku dar waa meeqa waa 5 haddaa taas la soo xisaabiy 5 ayuu soo bandhigayaa xisaabka lagu noqonayo maxaa yeelay inta ayuu kusoo xisaabinay kadib ayaa waxaa lagu darayaa hal ku dar meeqa waa evereed hal ku dar hal ay noqonaysaa kadib markii hal lagu daro koodkeenu wuxuu imaanayaa inta waxaa leeyahay ay meeqa waaye intaa la turjumaya ay meeqa waaye waa hal maxaa yeelay hadda hal lagu soo daro evereed hal iyo 3 yaayar hal yaayar okay intaa la imaanaya wuxuu leeyahay soo bandhig maxaa soo bandhigaa arraydan positionkeeda koowaad meeqa ku jiro waa kana waa 2 waxaa soo bandhigayaa 2 oo lagu daray calaamadan lagu darada ama qurxis haddii aan rabo waa dhigi kartaa saas xataa wuu soo bandhigayaa wax macnaa ma sameynayso keliya waa qurxis oo lagu daray okay haddana calaamadan soo bandhig waaye waxaan soo bandhigaa arraydan positionkeeda iyadana koowaad waa kana iyadana 5 meeqa waaye waa intuu ahayd 2 lagu daray meeqa waa intana 5 waxay la mid tahay dhaa intana iyadana qurxis le waaye maxaa yeelay xisaabaad hadaa la soo xisaabiyey wadarta positionkeeda iyadana koowaad 5 ku dar meeqa waaye hadaa la soo xisaabiyey waa 7 waxaa lasoo bandhigayaa 7 kadib wuxuu ku daba qabanaya sadar cusub kadib intaa la imaanayaa ayaa hal lagu daraa ma 2 okay 2 iyo 3 yaayar intaa la imaanayaa soo bandhig haddana sidii oo kale dhacay arraydan positionkeeda labaad meeqa waaye waa 3 oo lagu daray arraydan positionkeeda iyadana labaad meeqa waaye waa 6 kadib waxaa la equal kadib haddana soo bandhig calaamadaas soo bandhig ay u taagan tahay wadarta positionkeeda iyadana meeqo labaad meeqa ku jiro 9 kadibna waxaa soo bandhig endline ayaa waxaa lagu darayaa hal meeqay noqonaysaa 3 intaa la imaanaya 3 marka yaryahay 3 waa aan dhehe waxaa la imaanayaa inta waxaa leeyahay 3 marka yaryahay 3 waa maya sidaa darteed waxaa laga baxayaa afwan sidaa darteed for loopkan dhammaantiis waa laga baxay maxaa yeelay waa falso kadib waxaa la imaanaya inta wuxuu raadinayaa wax kale oo dhiman wax kale ma dhinno sidaa darteed koodkeeni wuu dhammaanayaa cashirkeenan intaas ayuu nagu egyahay maanta wixii ra'li ah qabto qaybta community igu reeb videogana like star channelkana subscribe star si aad ula socotid dhammaan video kasta aan soo gelino cashirkeenana waa naga intaa